hogaamiyaasha liita astaantooda waxaa ka mid ah xambaaridda xilal fara badan maxaydiin oo ku xigeenka maaliyadda ahna lehna awood garaad u soo socoto tu suldaan ka sii socoto tu caaqil banaamin waxaan la garan okay Soomaalida waxay ku mahmaahdaa timaha jirkaaga ku yaalay waa mid laga xiriir mid aad iska xirto tima jaraadaan u tago intan iyo intan iga xiro waa inuu halka ku jooga in gaara jirto aanu inaan xirtaa soo right xilka iyo waajibaadka iyo shaqada la qabanayo ma xataa timahana lagu leeyahay that will be delegation in cidii qaban lahayd loo dhaadhiciyo dib baa ka taagan Soomaalida halka ay dhaliisheeda u weyn ka jirto sagaal xil inuu xambaaruna midna qabanin buu yaa la jecel yahay marka ma wanaagsana kibir iyo isqaadqaad waxa la yiraahdaa heliyaza zangada agombuso haruurka laanta bilaa midhaha aba taagan tamidhaha leh way foorartaa soo laanta midhaha leh way foorartaa ta bilaa midhaha taagan qof kibro isqaadqaada hadii aad aragto waa laanta bilaa midhaha ormadu waxay tiraahdaa dhukee fakaa dhawaan qey gadho iskaba fool xumo laakiin dantaada ka shaqeyso dantaada garade anoo iska fool xun cidna hadaan waxba weydiisan waa iska qurux badan hayde laakiin anoo qurux badan oo labisan hadaan da warsameyn that's not fit aajis kamaagid maaragtay xalinta dhibaatooyinka jira cid kala sugid hawsha oo aan la dhameystirin waqtiga oo aan si sax ah loo isticmaalin habsaamid rataalid hadal bilaa xikmad ah tusaale ahaan waqtiga imsa saacadood baa jaad loo fadhiyaa qaar 24 saacadood sida kaalmaha shidaalka 24 hour service bixiya jiraysan qayilka isku celcelis 6 saacadood hadaynu qaadano 6 saacadood isku celcelis average hadaynu qaadano oo 6 saacadood qofkaasi jaad u fadhiyo waa 24 saacadood rubuc Soomaa 24 saacadood rubuc shakhsigaasi 40 sano hadii uu jiro 10 sano jaad buu fadhiyo oo waa 40 sano rubuceedii 24 hour rubuciisi markuu yahay sidaas 40 sanana rubuc maalinta yawmal qiyaamana waxa la isweydiin doono waxa kamid ah waqtiga todobada ilaahay maalinta yawmal qiyaama u haraynayna waxa kamid ah malakul aadi hogaamiyaha wanaagsan hadii uu leexdana mala shirkiga un baa ka horeynay dhanka kalena waladuun bar kaftano labada albaab way furan yihiin marka waa adigu wax qabadkaaga iyo qalbigaaga wixii ku jiray waxa uu kugu daro un way ta kale waxa jirta sababaha cabsida ku beero hogaamiyaha liita sababaha ku beero kow guul daraan la kulmi waa la eedayn mucaarad baa la igu noqon kalsoonidan waay kamaagida mas'uuliyadda ama xilka lagu igmaday haddaan khaldamana xilka la iga qaadi aragti sidaasi hadii ay kugu jirto wiyishani inta leeg ayga yara inta leeg ba eryanay qayladiisu may maqashay physically intuu leeyahay ma way dib u day cid walbaad u nuglaan shay walbaad u nuglaan muxuu yiri cigaalo cil hortii jabay adoon hawshiiba gudagelin baad self defeating beliefs baa la yiraahdaa or psychologically slavery inaad adigu damiir ahaan isgumaysato oo adigu aqligaaga maxbuus iska dhigto iyadoo cid kale ku soo gaarin adigu inaad self prisoner iska dhigto iyo aan kugu dhacdo hadii ay aragtiyahani kugu jiraan guul daraan la kulmi waa la eedayn mucaarad baa la igu noqon mar baan isku dayo matii iga gaadhay baabacadaati ma katay inaanan marta la iguma haleeyo waa negative competition waa psychologically qofkani isaga gudihiisa isku mashquulay attitudinal problem baa haysta natiijada ka soo baxaysa hadaba maxay tahay hadii ay sidani ku jirto kow guul gaari maysid because you did nothing waxa la yaala waxaynu qabanay ma jirto farxad heli maysid oo cid qaracsan oo ka baxday ma jirto amba cid aad anfacday ma jirto isxil qaami maysid oo dhibaatadii hore ku rasaysan waayida xiriirka bulshadu hadii ayna manaafacaad kugu qabin kuma qadarinayso waayida xiriirka bulshada caafimaad darro waa la ii jeedaa un baa ka soo hadhi waa lagu takoori dadaalkaaga waan mina dhalin nasasho la'aan buufis iyo walwal iyo walaacun baa ku dili
هدي أي موقف كاجا تلا هذا كوشر تان ولا يدين ولا يليابي أتان وخلدمنا من قيمين self defeating أدو أدي بسقو فوفتو نتيجة ده كسب حيساي وأنت نكني وهوش من هي ومدحوينه فيتنام بوها فيتنام مركي روش كجوليس توا نكى مدحوينها فيتنام مركي إنجليز كجوليس توا نكى مدحوينها فيتنام مركي أمريكان كجوليس توا نكى مدحوينها فيتنام مركي فرنسيس كجوليس تي ونكى مدحوينها لباتن سنوي حلك هي لباتن كسنوي حلك هي مالكي وحى وسيحن شري لباتن دقيقة صدح إيا لباتن ساعدود إيا أفرتن دقيقة وحى وكشري شري تقال رجع الدنيا ده وقوم موقف كأذق بكشرة لكن أمد وحلا قدرية هاي أنت نقالها وهاد بين تويه نين كمراي كان إيمان تكلمة دويرة أم بها سمعت أم بها حالات واحد دون تبعها أهاته لما هو على قوة الشيكين أنا أقول لك حكمة عن دونه يونا عن دونه هتان شيكو هاي أنت شايف كيكم هذا ويرتا أنت اللي خطر يا وي أنت هنا ندراش كا إما قشة أنت قابلنا الله that's it مركا نقاله that much نقاله it is a very serious دل والبا waxa lagu qadariyay waa cududda shaqaale cududda waxbaratay ee uu haysto iyo dhaqaalaha dalku inta uu dhan yahay ya lagu qadariya haddii aan dhaqaalada haysan miskiin iska tahay nobody will be respected you cid ku qadarinaysa amba ku xaq dhawraysa ma jirto ee aad adigu tabcanayso that is which make sense ta dareenka iyo maaragtay samaynaysa waa taa